السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن ملك استود كشكتن دنيا فهذا وين خلونا أوجي سرد وهذا وإحنا نص قاضية إن اسمه كهذلي حالة تقال إكتاجن وغوي قلبي قرأت كيجي قرأت شمع قرأت علي إيو اسمك لو قرأت حجز كسوتشي ده بالأين وضع رقم ورطة كسر وهذا صلادين تا ريرش إسحاق بري يبوح كهاللي وحن ليه ما أنت بينوس أفقران كرا هذا الآن قران كرينو ما أنت باتكو هذا الشيء أنت نعم قرأت يطبق كاس النضوط أنا كلها ولا راح يو نجاك حيست ويلشين نجاك حيست عيدا كين قريه كل نقطة وحقيقة دور تقدر دوشة كسر ريدين قرن باكر الدولة باسدنا وحن أرشيء زين وحن نقوة هذا الله ما نانقرنين si aanu idin la hadlanaan maanaan garanayn inaanu idin abina mooyaane maantaanu idin la hadli karayna mar haddaad tiraahdeen reer hebel annagoo waanu afgaran karaa wiilashiina haddaad ceshanaysaan wiilashayada waa ceshanayna haddaad ceshan weydaanna ceshan weyno ninkay hali ugu dhasho iyo ninkay ugu badisa aynu aragno ninkii wanaag ka maala iyo ninka xumaan ka maala aynu aragno ceshta wiilashiina hadday kelmad dambe ka yiraahdaan hargeysa waxaanu soo xiraynaa xadka waxaanu ku soo soconnaa waa guryihiina weey hadday mar dambe dhulka yaga sheegtaan waxaanu ku soo duulaynaa waa dhulkiina weey qabsada oo xirta oo ceshta oo xakamaysta wiilashiina markaasaanu xakamaynaynaa haddii kale waxaan garaa maamulka SSC wuxuu daba joogaa dadkii dhibaatada ka sameeyay إلى يدو كل الله سعانوت كواسو بادي قوبيا إذن كإذن ما صعدوا إلى هرجيسي شوغان هل كاسو قصو قبانيا وقال لي إحدو السود داية أفكا يغتاسو نقندونا هذا سوي له شيء ترادان أما وهبرش على أنك عشرينا أما ورهرش إسحاق وعشرينا ما نتاسين أفكرانينا ما نتاسين وضح لي كرينا ما نتاسين نبض إنه الرئيسة تاكو بيعبه oo ku seexdo ku soo toosa wabillahi tawfiiq aad baan u salaamaya ummadda Soomaaliyeed salaam allah kaas wuxuu ahaa garajaan garad cali oo runta u sheegay argagixisadii Muuse Juudaan iyo Islaam oo ku yiri wiilashiina haddaad ceshataan kuwayaga waanu ceshan haddaad si dhulkayaga ku qarowdaan kiina u qaadan doona hadalka xaqiiqadiisa loo tagaa lagama sinaysto hal mar buu garaadku hadlaayo markaasna bambooyin buu afka ka jaraa waana run waa hadal runa haddii aad wiilashiina ceshataan dee kuwayaga waan ceshanayna haddii dhulkayaga aad ku qarweysaan aad iska daysaanna dee kiina uma soo soconno markaa lama kala gardarnaado gardaradun ma fiicna colaadaha sokeeye iyo ustooxa socda iyo waxaan disgustingka ahee isku meeraysanaya iminkee beelaha noqday reer miyiga lagu meereysanayo wax qurux badan ma aha ilaahay xaq ahaydun tuso waxaanu soo qaadanaynaa ma isinba mise waa siyaasi garxajisa oo isaguna runta ka hadlay bal ku soo dhawaadaysa waxaan maanta idin leeyahay la degdegin habar jeclo inaga u tola inaga u hela qalalaadka aan ka qabanno haddii ay laga qaldan yahayna harti weyn oo qabsoomayay harti aan ka qabanno hartiintaynu u tagno inuu gowla tagno ka joojiye qaladka inuu nidhaahno wixii kale waa waali dhaqaaq waxaana anigu ii muuqata nin in badan la fogeeyay oo maanta soo dhawaaday in wixii si la weysiinayo xaqiisi ninkaasi talo waayo waa garxajis waa dagaal doorasho waa dagaal dib u dhigideed waa dagaal maxaan ku oran jiray nooc kale u socda dagaal aynu u baahanay maaha nimankii noo ergeeyay in maanta la amro oo habar jeclo maanta amar bayna siisay iyadana amar la siiyo oo dagaalka la joojiyo oo gogol nabadeed la dhigo ayaa garxajis looga baahan yahay loogama baahnayna waa aad raacaan
way habar jeclo wayna amartay hal am hal ila dagaalka jooji الله رون بدنا laakiin ay doonanayaan badadkii oo iyaga loo taaglayo iyaga Muuse iyaga Muuse soo cabaana ka baxa iyaga Muuse ha soo cabaani ka baxa gardaradu ilaahay ma jecla wayna jabay waxa leena qabqabanayana waxa weeye abiska leena afinaya leeyahay lihin Allah haduu yidima doonana guriyaga noo daayay waa dad islaama waa dad Soomaaliya markay ku dhimato waynu heshiin doonaa dhulbahantay iyo inta haysa annagu dhulbahantay ismahay oo kan xajisaan waxba aan suuqay qarin kan xajisbaan anigu waa la wada garanaya laakiin waxaan ku baaqayaa habar jecel hadii laga gardareeyo waan u hiilinayna haday gardarantay oo nu qaban kari weynana dagaalka la gali meynadii dhulbahantay waanu aaminsanayn inay noo qabsoomayaan habar jecel ma noo qabsoomaysa habar jecel hadii noo qabsoomaysa gad arintiina waan galin hadii aydan lagu kalsoonayna samada haday indhaha iska saarayaan oo si cad loo kala baxayo wallahi waxba isaga keen qaldameen runtaad u sheegtay tolka waa mahadsan tahay de wada hadalka miiska wada hadalku hadii noo furan yahay garaadkeenina saasuba yiri miiska wada hadalku ilmaada reelo inoo furan ashada wiilasheena waa cashanayna dhulka yagana ha ku soo riyoonina kiina uma soo soconay laakiin dadka ayaa ku riyootan de kiina damba la isugu imanaya wax fool xun weeye mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinayaa dadka dantu isugu jirto ee dantu ka dhaxayso ee colaadaha la dhex dhigayo ee dhibaatooyinka la dhex dhigayo ee la isaga tagayo ee iyaga ay ku hari doonto hooy isma hurtoy ha isalayn war hooy isma hurtoy ha isalayn baan leeyahay intaasoo kaliya kaga baxaya ragga hadaladoodu idinku filan in ilaahayna ha kala qaboojiyo colaadahan waa colaado aad u fool xun abtiyaalo dhul aad leedihiin uma soo soconay dhulkiina ku ekaada oo wiilashiina cishada wiilashayda way cishan doonaaye dadku wiina cishataan riyada aad dhulkayga kusoo riyoonaysaan ka kaaftoom hadad ka kaaftoomi weydaan kiina la delay isugu imanaya waa intaasoo kaliya hadalku ilaahay bogooda barcad hayso mariyo dadka masaakiinta la isku jabinayo wax ay kala sitaan iyo wax isugu dhimanayaan aan la garanayn الله كلا قبوتشيو بوجودنا برعاد الله يسوع مريو وإذ سلام يا